subaxa qiyaamaha la hortagi subxaanka haddaan culimada nahay waxaan anagu ka hortagnay inuu buuq noocaas oo kale uu dhaco oo shaqab caynkaas oo kale uu dhaco baan awgeed muxaadaradana u qabanay aan jecel lahay inay maxay hayday caawa halka ku dhamaatay hadalaynteed waxay noqotay qadiyad bari la oran jiray caalam islaamiga haraysay oo nin la oran jiray Salman Rushdie la oran jiray oo ku dhawaaqay oo caalamul islaamigu mar kaliya waa wadiyay horta qadiyadani boor ma saasoo kale ku noqotay aniga waxay igu horeysay habeenkii khamiis soo galaysay maalintii khamiistii baa igu horeysay maqalkeeda yaa igu horeysay ilaa jimcihana waxaan lahayn masaajidada inta waaweyn waxaan lahayn warba hal u kaaji oo waxba ka hadlayna joojiya laakiin in badan oo culimo oo ka hadlayna way jiraan oo wixii jiray uu warramay wixii jiray sheegay in badanna waxay yiraahdeen bal aan hubin labaanu u badnayn anagu oo waxaan sheegay sidii aan hubin arintan dhacday oo la sheegayo in gudoomiyihii gobolku oo aflagaadeeyay diinta islaamka oo caayay isagoo qof kaliya kulka aan ahayn qofka uu afku qabsanayay intii jamciye qadiyada ula tagtay intii uu ku yiri maxay hayday diintiina waxa ku sameeyay anu dawaan dul maraya sharciga islaam aadaabku ina bare waxa ah hadaad xataa xikaayoon baabu shahaada kulka la joogo shayga cadeeba lagu orano ku dhawaa qofku wuxuu yiri waa lagu oran laakiin intaan shahaadada joogin kinaayad baa la isticmaalayo waxa uu sameeyay baa la oranaya waxa uu sameeyay waa la yar dul maraya yaa la dul farxumeeyada maqasheen waxa weeye waa hadal la dul marayo way laakiin kolka maraga ay joogto hadhow uu farxumeeyay marxaati noqon mayso wixii adarkaysa sheeg baa la oranaya wixii baa laga doonaya marka arrinka yani meesha waxa laga sheegayaa anigu ma aan joogin laakiin dadka waana ay warramay waa la cadaynayaa inuu sidaa yiri dad badan baa cadaynayo meesha xaflad ayay ahayd haddii xaflad ay ahayd shayga caynkaas u dhacayna waliba dhiiranida inamadii inan kamida ayuu jeelka ii geeyo xabsiga ii geeyo oo la xiray habeenkii halka dhaxanta ku bariyay oo aroonimadii booliska ay yiraahdeen war damxaan inankan ku haynaa isagaaba inankan dacwoonayay oo cabanayay maxaynu ku haynaa war inaga sii daayay arrintaasina waxa weeye waa dhiirani qofku u dhiiran yahay anigu kolka u xambaarin maayo odhan maayo waxaas yiri odhan maayo kama qalay ee jooga ka marxaati kacayna may laakiin waxa arrintaasi ugu muuqataa oo u soo jeedinaya madaxda qaranka ee ugu horeeya madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha wasiirka awqaafta iyo diinta odhan maayo anu ninka hal eriyana odhan maayo hal la bedelana odhan maayo labada midna anu odhan maayo laakiin maxaan leeyahay wuxuu sharcigu yahay hal la mariyo maxkamad hal la saaro xasaanada inta laga qaado in gobolkan dadka joogay kaale odhan maayaano kiis baan kugu qaadanaa odhan maaye hasoo ogolaada madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo maxaan ku yiraahdaa wasiirka awqaafta iyo diintu arrinkaas soo farageliyaan magaalada sidaa ku deganaato magaaladu dhalinyartu sidaa ku deganaato in wixii waajib ah sharci u leeyahay maxkamadda dadka la geeyo reer bani israa'iil xadiiska saxiixa waa maqashay inay yahay reer bani israa'iil waxa halaagay annahum kaanu idha saraqa fihim dha'if aqamu alayhi al-hadd wa idha saraqa fihim sharif tarakuhu waxa reer bani israa'iil lagu halaagay kooda miskiinka dhaifka haduu xad galo wax galo qabta ayaa la yiraahdaa xira qabta ku tooda ayaa la yiraahdaa kooda oday haduu yiraahdana waar ka daaya waar ninkaasi waa oday marka tii reer bani israa'iil ka yaan noqonin anu hal eriyana oran maayo hal bedelana oran maayo laakiin hal la mariyo sharciga inoo degan hal la mariyo diinta anu waxaan ogahay sharci caadadu maxkamadaha ka yaalo oo ninkii ay ku cadaatay diinta islaamka inuu caayay horta waa ridda diinta islaamka caydeedu waa riddo weey waxaad ogtiin takaadu samaawaatu wal ardu yatafadalna min an da'u lirrahmani waladin samada iyo arladaasi in la dutaalaay inay dilaacdo kala go'do oo nagu soo dibacday u dhawaatay sababtu waa maxay an da'u lirrahmani waladin ilaahay kolkay ubad ku shahadeey bay caayay kuwaas ilaahay may caayay waxay yiraahdeen Uzayr ibn Allah bay yiraahdeen Isa ibn Allah al-malaa'ikatu banatullah iyo kuwa shariifay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa oo sheega oo way naga sareeyaan waa awlaadiisa aynu niraan laakiin ilaahay subhanahu wa ta'ala ma yeelan karo uu ka nasahan yahay adduunkii oo dhan buu wada leeyahay inuu mid kamid ah yiraahdo kana ilmaha iga yoon dhalay
oo ilmahaygii ah uu yidhaa inay walad wuxuu noqonayaa min jinsi waalid buu noqdaa walad min jinsi waalid buu noqdaa ama xayawaan kala ahaado ama dad ha ahaado wax sheegida la sheegay can dacwada raxmaani waladan sheegida ilaahay ay ku sheegeen walado ilmuhu dhalay ay yiraahdeen iyagu kuwan aad shariftaan bay leeyihiin isagana waxay leeyihiin waa awlaadiisa aynu ixtiraam iyo leeyihiin taasoo cirkiga dhulku awlagu gaaray ay maxaad u malaysaa ayna maxaad u malaysaa aad baynu sahlanaa anu waxaan inta badan ilaahdaa war dadka suuqa jooga ninkii maqla ee nin diinta isagoo caayaya maqlo waajib waxa kugu amarkaaba horta sharciga islaamku ma ogola cuquubada inuu qofku fushado ma qofku ma fushan karo hatta qisaaskii baa lagu leeyahay qaatilu abik qaatilu akhik intoo qaado un baan alla waan qisaasanaya qoorta ka goyn odhamis la odhamis fidnad ba ka dhalanaysa xaakimka geeyaysa xaakimka ku soo bandhigayo qisaaso ku odhanaya marka waxaan war halkaad ka leedahay diintu haduu diinta caayo ma gacan maxaad uga qaban waa tan maxkamadda agteena maxkamaddu intag markhaatina u yeel markhaatiyada gee kolkaasaas wixii maxay hayday ay adiguna ku badbaadaysa adiguna ku siyaasad maxay hayday ayaad ku badbaadaysa wixii xumaanta aad maqasho waxaad ku badbaadi kartaa adiga oo ka xumaada ayaad ku badbaadi kartaa marka wax leena arrinkaasi hay naga soo afxidmo wixii naga soo afxidmaya yeynaan siina wadwadu oo inaan sii qaadqaadin kolkaanu ogaanay wixii inuu markhaatiyaal leeyahay oo aanu hayno dadkii xataale maragga ilaahay waan furayaa maxkamadda haddii la igeeyo arrinkaa odhan mayno halla eryana odhan mayno halla bedelana odhan mayno laakiin sharciga islaamka ha la waafajiyo allahumma cala nabiyina maxamed wa cala alihi wasaxbi wasallam